الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد ضمان كسوق قلياشا شركان شرع علميات كأه هيئتها سواء بابولي وكوي كتا هيئة الذات sidoo kale jaamacadaheena jaamacadda Hormuud, jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadda Banaadir aad iyo aad ugu mahadsan yihiin runtii. waa bogaadinaynaa waqti ma haysano haddii aan u guda galo cilmi baaristayda waxay ku saabsan tahay siyaasadaha maalgashiga ee dowladda Soomaaliya iyo sida ay uga qayb qaadan karaan kobaca dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed. runtii daraasooyinkii hore waxay ku saabsanaayeen ama ay diiradda saarayeen dowlad dhisidda. ilaa shalay markaan commentiyadii dadka iyo sidoo kale cilmi baari researcheskii ama cilmi baaristii la sameeyey ama la jeediyay aan dhageysanayo waxa ii soo baxday in aan shirkan uga dhigno halkudhigaas oo ah aayaddaas qur-aanka oo horteena ka muuqato wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. runtii aayaddu waxay sawir ka bixinaysaa in la qabsado horta marka hore xarigga ilaahay haddii la rabo dadku inay hagaagaan dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan intaba. waxay kasii hadashay aayaddu inay jiri jireen ummado isdagaalay ama istiriray oo dhibaatooyinkan soo marno kala soo maray oo ay kow ka ahaayeen Aws iyo Khasraj. dhibaatooyin badan ay soo mareen, in muddo ay dagaalamayeen, dhiig badan ay iska daadiyeen, burbur hantiyadeed, burbur nafeed, burbur dhan walba ayaa soo kala gaaray. xasad iyo ciil badan ay isku qabeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu u dardaarmay xarigga ilaahay subxaanahu wa tacaala inay wada qabsadaan wactasimuu bixablillahi jamiican. xarigga ilaahayna waa kitaabka ilaahay oo almamduud min asamaa ila alard. hada huwa xablullah, kaasaa wuxuu yahay xarigga ilaahay. kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kasii warramay wadkuruu id kuntum acdaa'an. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaad xasuusataan ama aad xustaan mar aad col isku wada ahaydeen. Aws iyo Khasraj kiya la tilmaama iyo dad kale oo sha'nigooda ama arrimahooda ay saas oo kale yihiin. wa kuntum ala shafa hufrati min an-nar fa anqadhakum minha. waxaa lagu badbaadaa marka xarigga ilaahay oo la qabsado dhan walba ayaa lagu badbaadaa. sidoo kale waxa ay soo baxay waxyaabaha aadka loogu baahan yahay in la sameeyo inay tahay in la shaqeeyo. dunidu waxay horumar ku gaartay in la shaqeeyo. shaqadana cidda ku muraaqabaynayso qofka muslimka cidda koobaad oo ilaalinayso waa Allah subxaanahu wa tacaala. marka waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum. qof walba kaalintiisa inuu ka soo baxo ayaa la rabaa. warqadaydu waxay si gaar ah ugu saabsan tahay dhaqaalaha. islaamku waa diin shaamil ah oo dhammaystiran. runtii diintaas dhammaystiran majaal ay ka tagtay ma jiro. majaalaadkay sida aadka uga hadashay waxaa ka mid ah majaalka dhaqaalaha. in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu kaga hadlay. waxaan ka dhiganaynaa maadaama ay ku saabsan tahay kelimadeenna inaan ka hadalno siyaasadaha dowladda ama siyaasadaha maalgashiga dowladda Soomaaliya ee ku aadan kobaca dhaqaalaha. waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxay noqon karaan siyaasadahaas dowladda laga rabo inay fuliso ama ay la timaado si kobac dhaqaale ama dhaqaalihii Soomaaliya horumar u sameeyo. waxaan ka warrami doonaa marka xaaladda waddanka iyo xaaladda si guud waddanka Soomaaliya. problem statementiga ama mushkiladda igu dhalisay researchkan ama cilmi baaristan waxay ahayd sida badan markaad fiirisid literatureska laga qoray maadadan waxay ku kooban yihiin kaliya in la muujiyo jaalanjiyada iyo caqabadaha iyo sidoo kale in la muujiyo daraasado la xiriiro sectoriska dhaqaalaha Soomaaliya iyo awoodaha dhaqaalaha Soomaaliya uu leeyahay. waxaan istusay marka inay habboon tahay in dowladdu ay la timaado siyaasad ku habboon oo ay kaga faa'iideysan karto khayraadkan haysano Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nasiiyay
khayraadkaasoo ah hadday tahay mid bariyey iyo hadday tahay mid dhuleed intaba inay habboon tahay. waxaa xasuustay marka aayaddii qur-aanka ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati yuusuf uu ku yidhi markii meligii ama boqorkii ou arkay riyada, waqaala almeliku inii araa 7 baqaraatin simaanin yaakuluhunna 7 cijaafun 7 baqaraatin simaanin وأخر و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. آيات ساسة يهيد ملك وحو رياهان كو أركي تدبس صبول خضر يسيدو كلا تدبس سعود أو شليس أما عيلا كدي من وحو يري ريادي داس إن لأي فسيران ربا ريادي وح فسيروا لوايي إلى مركي دنبا نين كميدا رجي حبس النبي يوسف كولجري أو كسب بدبادي لبادي نين كميدا نين نوا تجي نين نوا كسب بدبادي نينكي كسب بدبادي أيها حسوس النبي يوسف إنه ريوي كفسره ريادي وحكو فسره وحيا هيت قال تزرعون 7 سنين الدأبة إن سياسته يو مالجشجة سياسته سئنه ودتشيء دولتي حل جاجرتي أما دولتي marka wuxuu yiri nabi yusuf alayhi salaam qaala tazra'una 7 siniina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. siyaasadaas fiiri 14 sano ama 15 sano qorshe ku saabsan ayuu nabi yusuf alayhi salaam oo dajiyay. thumma ya'ti min ba'di dhalika 7 cijafun ya'kulna ma qaddamtum illa qalilan mimma tuhsirun. kadib waxa ku xigtay thumma ya'ti min ba'di dhalika عام فيه يقاث الناس سنة دتك الورابية أي إيمان دون. مرك رنتي دولة دنيا كفكرته سياسة الوهر مرينا دقالها ومهم مرك أنا قلت أكد لنا أيام وحن استثنينا يهبون تهاي إن سياسة سيديرة اللصارة أما حوج اللصارة مرك سجود ريسيرش كأما علم باريستان وحكوا سابسنت هاي سياسة سيقاب كي الوهر مري لهاي أنا قصوكوا بينه. waxaan isweydiinay marka su'aalahan ama objectiviskan ay diiradda saaraysaa daraasada objectiviska waxa ugu horeeya ama su'aalahan isweydiiyay waxa ugu horeeya ama daraasadu ay isweydiisay in laga hadlo si guud xaaladda dhaqaale ee wadanka Soomaaliya iyo caqabadaha ku gudban dhaqaalaha wadanka Soomaaliyeed ama dhibaatooyinka haysto dhaqaalaha wadanka Soomaaliyeed ama dhaqaalaha Soomaaliya. xaaladda guud oo dhaqaalaha dabcan waan ka warqabnaa dhaqaalaheena aad buu u hooseeyaa isbedelo way dhacayeen xilliyadii dambe GDP-ga ama wax soo saarka wadanka uu siyaadayo waayihii dambe sida daraasooyinka ku sugan laakiin ayadoo isaasta haddana wadanku wuxuu wajahaa caqabado kala duwan ayuu wajahaa. caqabadahaas marka koow waxaa ka ah waxa u naqaano political instability ama deganaan la'aan siyaasadeed oo ah dhib weyn oo runtii jiro. dhibkaasina uu keeni karo waayo siyaasadda iyo dhaqaalaha sida badan waa laba faktor oo saameyn uu ka dhaxeeyo ama xiriir uu ka dhaxeeyo. sidaas daraadeed haddii siyaasadii aysan xasiloonayn waxaa imaaha dhaqaalihii wadanka inuusan deganaanin. waxaa ka mid ah sidoo kale weak institutionska ama wax loo yaqaan muassasaadkii dawladda aad iyo aad ayay u hooseeyaan. waxaa laga hadlay oo asaatidadii ustaadka hadda iga horreeyay ama dakaatiradii ay ka hadleen xoogga saareen corruptionka iyo dhibaatada uu ku hayo. taasi corruptionka iyo dhibaatadaas waxaa keeni karo ama waxa kow ka ah waa liidnaanta muassasaadkeena iyo wasaaradihii iyo dadkii runtii xilalka loo dhiibayo oon mudnayn. shalay laga soo dhawaajiyay waxa waay qof aan mudnayn ama shakhsi aan mudnayn haddii booskii la geeyo waxaa imaana inuu dhibaatooyin iyo khiyaano iyo corruption uu sameeyo ayaa imaana. lidaalika waxaa muhiim ah dadka jooga maraakista ama meelaha go'aanka inay ka fiirsadaan dadkay shaqaalaysiiyahayaan. nabiguna sallallahu alayhi wasallam arrinkaas uu ka hadlay. nabigoo maalin la hadlaa asxaabta ayaa waxaa u yimid nin reemiya markaasuu wuxuu ku soo tuuray su-aashu marka waxay ahayd mata saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa. marka nabigu sallallahu alayhi wasallam hadalkiisiiba iska sii watay uma jawaabin. kadib markuu hadalkiisii bogto oo dhamaystay ayuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ayna saa'il kii su-aasha ay weydiihaayay meeyaan. markaabuu yiri ha ana ya rasuulallah aniga waaye rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam.
وحكير النبي صلى الله عليه وسلم ساعد قيام وحي دعيسا إذا ضيعت الأمانة أمانة مرك الله بيلهيه والله ضيعه أي ساعد قيام دعيسا نكون فريدة أيوة هاي وحويديي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إضاعتها أمانة سيلا ضيعها أمانة سيلا ضيعها أم الله منا النبي صلى الله عليه وسلم وحكو جوابي إذا وسد الأمر إلى غير أهله قفان ثلاثة منين أما قفان بوسكي منين مركي بوسكي لو ديبو وحا دعيسو ساعد قيامه وحا دعا إسدلا دعا وحا دعا حانتدي ددوينها إلا عنا وحا دعا دادكو إنay gaajodaan ama poverty iyo faqri iyo dhibaatooyin ay imaana waxa imaana qof aan dhima lahayn inuu dhinto ayaa imaana marka saacada qiyaamaha nabiga sallallahu alayhi wasallam soo ka dhawaaji waxay dhacaysaa marka amaanooyinka la khiyaano waxa haboon marka amaanooyinkii in la ilaaliyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo dhiibay aan ku dadaalno saan u ilaali lahayn hadii naloo dhiibo positioniskaas hadayta sheekadii ku saabsanayd meesha waxaan rabaa inaan dhex gashado كوشين runtii dadka qaar waxaad moodaa sababa inay u sameeyayaan in xoolaha dadweynaha la dhaco runtii arrinkaas isaga in laga digtoonaada haboon in la dhaca iska dhaafe bal iska badhaafe magacaada markaad position dawladeed joogtid ama position dadku ay wada leeyihiin aad joogtid waxaadan uga faa'iideysan karin xataa magacaada naftaada gaarka title-ka aad haysato title dawladeed waa waxa kugu soo galo waxa iskale dawladda iskale walidaalika taas anagoo ka duulay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa muxuu ahay ninbuu nabigu shaqaalaysiiyay markuu shaqaalaysiiyay ninkii sikada soo aruuriya loo diray sikada xoolaha soo aruuri markii loo diray sikada xoolaha inuu soo aruuriyo oo yimid wuxuu la yimid hada li wa hada uhdiya ilayya shakadaas la yimid intaan ana iskale هذا لكم وهذا أهدي إلي ساسو هاي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنت أنا ذيك إسكاله وحولي سكذا إنت أنا ليسو هديي النبي صلى الله عليه وسلم وايس بدلي والله الله إنكي وحكير أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هدية داني حولهان سيكوبي مادان ما قرق هو يدا أبها جوبتت أن أرجنا أيهدى إليك أم لا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجنا إن لجوسه هدية إن لجوسه هدية النبي صلى الله عليه وسلم أنت سكجماهرين قلبتي مركز صلاة عصير للتكذي أيو النبي قطبك جدي قطبه جدي وحكمي ده هايت إنه كسو حلقة بصدينينكي أو يري نبى شقاليسيها ونشقاء الدرا ومد كولا دحيسو كدي من وحو إلى إيمانا أما ويكينا أنت أنا إسكاله أنت أنا وحويان ووحي نيوان وليبا نينك مركات فيريسيد أنك هذا معيار كان وحكو عبرنا مركان فيرينو نينك واحد سلاذا قربه ولا هاي لأنه حوالي السكادة أسوق سن نظيفة وكاني لكن دتك السكادة وكسو قاعدة أيا وحي استوسين قرشاهان إن كان أي وحسيان إني وحسيان حوالي السكادة سيسح وكان مركا النبي صلى الله عليه وسلم قطبة دير وكجيدي قطبة دي مركا وحاكمي ده هيدين وكويري والله حولها نادر كيسان وددوينه وسكليه هاي مالين تقيام قف أدونك أنت اللي جوجو قف وحبك ما قاله إلا مالين تقيام وحو إيمانا السوق وحي سيدو السوق سيدو هدي مثلا آد قادتي نبي تسأله بحشي هدي ناف أريا وحو دق ما آد قادتي وحا إيمانا ناف كي أرجع هاي وعيها إيماني وتنك هذا كعيا هداد قادتي ناف لا وحو دق محاد إيمانا يسا ناف كي لا هاي أدو سيدو تنك كسيدو هدي آد قادتي ناف جيلا وحا إيمانا يسا أدو ناف كي جيلا سيدي أيا إيمانا يسا sidaas daraadeed xoolaha dadweynaha in laga digtoonaado waa intii dawaq adoo sartii wada iimaanaysa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas waa ma san doctor baadiyo runtii marka in laga digtoonaado waayo ad-daruura tubiix al-mahduraat iyo meelo kale in loo daliishado ayaa la rabaa meelo kale wax ka raadso risqigaada ilaahay subhanahu wa ta'ala hadda boolo way badan yihiin dabcan challengeska iyo caqabadaha waxa kamid ah in dad tababaran aysan jirin oo dadkii in la diyaariyo loo baahan yahay waxaa kamida sidoo kale serviceska iyo adeegyada inay liitaan haday taa adeeg waxbarasho adeeg wax caafimaad iyo adeeg kale waliyaano dhaqaalo wuxuu ku tiirsan yahay adeeg waxbarashadu ku tiirsan yahay adeegi wuxuu ku tiirsan yahay caafimaadka dhinacyo badan oo ku tiirsan yahay sidoo kale waxaan istusnay inay haboon tahay maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya siyaasadaha la gudboon oo dhaqaalaha ay ku kobcin karto waxaa kamida investmentiga iyo maalgashiga investmentigana waxa ugu horeeyo in bani aadamka la maalgaliyo
dalka intaan la dhisin dadka in la dhiso waa binaa al-insaan waa inay ka horeysaa dadka binaa al-awdaan ama wadanka in la dhiso waa inay ka horeyso wadanka in la dhiso waxaa ka horeeyo dadkii in la dhiso ayaa ka horeeya maankooda iyo maskaxdooda ayaa ka horeeya sidoo kale waxaa imaanaa iskaashi ka dhaxeeya waxaan malay 15 daqiiqo okay waa isku daya insha Allah waa soo gaaba sidoo kale waxaa muhiim ah in la isweydiiyo in la dhiirageliyo dawladdu waa inay dhiiragelisaa foreign investmentiga iyo wadankii in laga sameeyo maalgashigaasi wuxuu keenaa in fursado shaqo la abuuro fursadaha shaqana waxay keenayaan dad badan oo baahan inay helaan masdar rizq ama meel ay wax ka helaan sidoo kale in la dhiso institutions iyo muassasaad xoog leh oo ay kow ka tahay muassasaadka waxbarashada muassasaadka sidoo kale infrastructure-kii wadanka wadooyinkii wixii la midka ahay in la sameeyo oo la diyaariyo ayaa loo baahan yahay sectoriska dhaqaalaha wadanka meelaha ugu haboon oo daraasadu diiradda ay saartay waxaa kow ka ah in agriculture-ka iyo beeraha laga faa'iideysto xoolaha aan leenahay inaan ka faa'iideysano energy-ga iyo tamartii wadanka in la dhiirageliyo waxa la midka recommendationska haddaa tagtid ugu dambeyn waxaan dardaarmaynaa marka ama talooyinkaanaan soo jeedaynaa talada koowaad aan soo jeedayna horta si dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba aan u badbaadno waa inaan ilaahay subxaana watacaala u noqonnaa number 1 waay لأنه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسوح النجويرة إن أن السجا أدعنا رسول كيسنا أدعنا استجيبوا إلهي سبحانه وتعالى يلا وركي سمغلا الرسول كيسا إذا دعاكم لما يحييكم دقالها مركم إيش كوبات أو رنتي عن كهر مري كرنا وين قادنا دقالها إسلامك إلهي سبحانه وتعالى إن لا نقض وتوبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سيدو كلا إن لا مال قليو بني آدم كا oo lagu dadaalo sidii loo maalgelin lahay bini aadamka iyo human capitalka si horumar aan u gaarno sidoo kale waxaa muhiim ah in la ballaariyo ama la hormariyo waxaan leenahay inaan ka faa'iideysano waa muhiim si horumar aan u gaarno waxaa kaloo muhiim sidoo kale in aan ka faa'iideysano teknolojiyadda casriga ah oo horumarkeena uga faa'iideysano in badan ummadu waa naga tageen laakiin inaan ka daba tagno haddaan u baahannahay waa in dadkii loo diyaariyo inay ka faa'iideystaan teknolojiyaddaas casriga sidoo kale in dawladdu ay leedahay waa muhiim vision iyo aragti la'aantu macnaheedu waxa weeyaan qorshaheena maskaxdeena aan ku wadanaa wax socaamaa qorshe degan oo dadka lagala niqaashay oo dhammaan sectoriska dadku ay ka kooban yihiin laga qayb galiyay waa in la dejiyaa oo dawladdu ay dejisaa kadib markay la tashato talooyinkii dadka iyo waxaas oo dhan markay qaadato taa inaan ku dadaalno waa